shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد دمان مدحض الشرف تلاقي كسوق يبقى شركان قولها وزير هذا قدونك قول كاي دقمدا تلسك عيدنك مرت الشرف تكالي وقناع ستادا هوين يرقبا دلنيرada dhaqanka Soomaaliyeed ee halkan fadhiya madaxda shirkadda Somtel iyo guud ahaan Dahabshiil Group dhamaantiin waxaan ku salaamayaa islaamka intiina aan sheegay iyo wixii carabkaygu sheegayba bahda saxaafadda kulligiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib farxad bay ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo munaasabada tan ay ku daahfurayso shirkadda Somtel barnaamijka loogu magac daray maamuuska macmiilka waxaan rabaa marka koobaad inaan Somtel iraahdo waa mahadsantihiin qofkii wanaag idin sameeya wuxuu leeyahay nabigeenu sallallahu alayhi wasallam fakaafi'uhu cidii wanaag idin sameeysa u abaalguda abaalka ugu yar aynu maanta gudi karnaa waa inaan iraahno shukran jazaakumullahu khayran ilaahay hay'adka abaal mariyo abaalka labaadna waxa weeye inaan si buuxda uga mid noqono macaamiisha shirkadda Somtel iyo si guud Dahabshiil Group waa abaalka labaadoo loo baahan yahay oo mar walba si ay inoo ku badato waxa la inoo soo celinaya inaguna waxa aynu gelinaynaa habato si uu kambanigii iyo si fiican ugu shaqeeyo u socdo dhinac walbana looga faa'iido iyaguna ay horumar la taaban karo ku talaabsadaan markastoo kambanigii macaamiishiisu badato markastoo iyaguna ay ku fakaraan inay wax horumar keenaan oo bulshadooda ku celiyaan mar labaad waxaan u mahad celinayaa hawlwadeennada shirkadda Somtel oo aan ogahay inay rag dhalinyaro ah u badan yihiin ilaa Puntland heerka ugu sareeya rag dhalinyaro ah oo aqoon-yahan ah oo jaamacadaha dalka iyo kuwa dibaddaba ka soo baxay aan ogahay inay har iyo habeen u fakarayaan siday u horumarin lahaayeen adeeg ay bulshadooda u hayaan aad iyo aad baan u mahadsantihiin dhalinyaro waxaan isleeyahay insha Allah taala yoolalkiina iyo goolasha aad higtsanaysaan waad gaari doontaan haddana qayb badan oo kamid ah waa gaarteen si guud waan u mahad celinayaa Dahabshiil Group oo dabcan adeegan kaliya ma ahaan adeegyo badan bulshada u haysa oo ganacsi iyo adeegyo bulshada noloshooda taabanayaba kuwa hadda la sheegay baa kamid ah kuwa ka qayb qaadashada duruufaha taagan ee hadda dalkeena iyo dadkeena haysta gaar ahaan reer miyigeena iyo ka qayb qaadashadooda ayaa kamid ah mar walba oo dalkeena wax musiibo ay ku dhaco waxyaalaha shirkadaha ka qayb qaata ayay kamid tahay Dahabshiil Group oo kaalintooda ka qaata intaba waxay mudan yihiin in loogu mahad celiyo waxaan la qabaa intii hore oo tiri shirkaddu way ku mahadsan tahay mar walba waxyaalaha bulshada taabanaya noloshooda ay u soo bandhigayaan aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay sidoo kale waxa bulshadu wali codsanaysa in fakarka loo badiyo adeegyada loo badiyo horumarka mar walba la badiyo insha Allah taala aynu mar walba adduunka la jaan qaadno inagoo og inaynu dhanka teknolojiyada dawlado badan iyo dalal badan oo darisa kaga horeyno oo kaga fiicannahay oo shirkadaheena iyo dalkeenu kaga fiican yahay waa ogahay waxyaalaha aad unique ku tihiin oo ku fiican tihiin ayaa jira oo adeegyada isgaarsiinta kamid ah kuwa kale oo aad unique ku noqotaana insha Allah taala soo kordhiya aad iyo aad baan u mahadsantihiin waa intaas oo loogala sii dhawaado waana idin leenahay waa mahadsantihiin hambaliyo Somtel waa dookhayga waana dookha dadweynaha